الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فصل في الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى وأصحابها. في الفروض أياد فصلها في الفروض في الأنصباء نصيبيال المقدرة لقدري للورثة لو قدري في كتاب الله تعالى لو قدري وأصحابها وشاس أصحاب تيدي أيا ميشان لغا شيغايا. أصحاب الفرض وحالي يرادا كل من له سهم مقدر شرعا، كل من له سهم مقدر شرعا، ننكستا ومعناها نصيب لقدري شرعي لو قدرين اللي كاسا فرض يرادا. marka furuusho oo wax lagu dhaxlaaye laba qaybood waaye. qismun thabata bikitaabillaahi tacaala, sunnada iyo kitaabka ayaad ku sugnaaday, waa kuwaan noola sheegi doona. qismina ijtihaad ayaad ku sugnaaday oo asxaabta ayaa ijtihaad ku suubiyeen, waa thuluthulbaaqi waaye. marna jad ayaa loo qadari doonaa, marna umma ayaa loo qadari doonaa. marka furuusha ansibaa nasiib ayaa loo jeedaa furuusha oo usuuliyiintii oo faral iyo waajib loola jeeda ma ahaanin. almuqadara almaxsuura la qadari oo la koobay lilwarahati warahada. fasalka waa la cadeey. marka alfuruud almuqadarata fi kitaabillahi sittatun ayaan leenahay. alfuruud almuqadaratu fi kitaabillahi sittatun waaye, walaa yuzaadu calayhaa, sitidaas laguma siyaadiye oo mid todobaad lama arkaaye, walaa yunqasu canhaa lagamana yareeya ilaa licaaridin sabab inay imaado moogi. sabab oo loo siyaadinaa loo nusqaaminaa meesha inay timaado moogi, ilaa licaaridin kal cawli waaye. cawl waa noo imaadi doonaa, waa saraf waaye. dad oo 6 ayaad macnaha u qaybisay, 6 qof aad kala siisay, qof toddobaad ayaa soo baxay. waa sarrafaysaa, bal kuwiina keene meeqaad qaateen, min 5 kun aan qaadanay, soo celiibe. markaasaa iyada awloo 6 meelooda loo dhigaay waa la sarrafaa, waa la yaraynaa, min 7 meelood ka dhig ayaa leeyahy. marka cawlka dadkii waxa qaateena laga soo celinaa, dib ayaa loo sarrafaa, nusqaana soo geli. warraddi waa ka raddi waan soo marnay oo wixii islahay maahine wax ka badan ayaa la siinayaa. labadaad maxaa keeni? sabab caarid ayaa keenaysa. marka wuxuu ku yidhi 6 waaye, 6 faqad cadadan, 6 cadadan, wa 5 makhrajan, wa 5 makhrajan. makhraj markii la yidhaahaa 5 ay noqonayeen, laakiin tiradana 6 ay noqonayeen. makhraj ahlu thuluth iyo ahlu thuluthaan ayaa isku makhraj noqonayeen. ahlu thuluth iyo ahlu thuluthaan ayaa isku makhraj noqonayo, 3 ay isla galayeen. marka markii la fiiriyo makhraj ahaan 5 ay noqonayeen.
haddii laakiin la tiriyana 6 ayay noqonayeen. wahiya annisfu wathuluthu wathuluthaanu waalrubucu wathumunu wassudusu. annisfu waaye, wathuluthu waaye, wathuluthaan. annisfu xoolo 2 meelood loo dhigo meel waaye. wathuluthu xoolo 3 meelood loo dhiga meel laga qaadaa thuluth la yidhaahdaa. wathuluthaan thuluthaan xoolo 3 meelood laga dhigi oo 2 meelood la qaadaa la yidhaahdaa. waarubucu xoolo 4 meelood loo dhigi oo meesha 4aad laga qaadaa la yidhaahdaa. wathumunu xoolo 8 meelood loo dhigi meesha 8 laga qaadaa la yidhaahdaa. wassudusu xoolo 6 meelood loo dhigo meesha 6aad laga qaadaa la yidhaahdaa. markii aas tirise ood fiirise 3na waa isdhexgalayeen. annisfu waarubucu wathumunu intaad ma jeeda waa isdhexgalayeen. wathuluthu wathuluthaan wassudusuna waa isdhexgalayeen. 3 isdhexgeli iyo 3 isdhexgeli waaye. qawaacid fara badano annisfu wanisfu wathuluthu wanisfu nisfi waxaasaa la keeni doonaa, laakiin wuxuu leeyahay wa yucabbar waxaa laga cabiraa canhaa furuushaas la soo sheegay bihabaa dabas ayaa laga cabiraa. qaala araazi qaala shaaciru fi rijzi qaala raaziyi qof magacismaha baxr oo min baxri ayaa loo jeedaa, macnaha buxuurta oo baxrul macnaha 16 qaybood ay u qaybsamaysaa. marka shicirka waxaa la saaraa meelo weelal lagu dijinaa kuwa dhadheer dheer iyo ku gaaban oo calayka allaahu salla yaa muxamed saa loo gaabina madka baxrusid waaye. marka sheikh oo taajuddiin abu muxamed saalix ibnu thaamin la yidhaahda ood kitaabkaada hoose al jacbariye aad leeyahay ayaa gabaygan ku kulmi biqowlihi baad ku oo baxru rajis oo leeyahay labdu dawil furuudi min baxri rijzi khudhu murataban faqul habaa dabaas. ahlu furuudkoo dhan koobitaankooda ayadoo baxru rajis midkaasaan loo qaadaa baxru rajis la yidhahdaa. khudhu iga qabo oo murataban asagoo lisdaba dhigi oo faqul waxaa tidhaahdaa habaa dabas dheh. habaa dabas maxaa la yidhaha sheikha ayaa noo sheegaya. marka habaa dabas waxaa waa xisaabuljumal ayaa la yidhahdaa. abjad ma soo akhrisatay ab a alifta halaad keenaay bacdina 2 jiinkana 3 deelkana 4 macnaa wahaakadaa abjad ayay ku soconaysaa. marka kitaabkaadaa qora meel kale raadin matnigaad ku yeelaa. habaa dabas falhaa haada u horeyse tadullu waxay ku tusini calaa khamsatin macnaha ha xisaab ahaan 5 ay ka keentaa 5tana meeshaana ku imaaday. wannisfu nisf kadaalika sidaas oo kalaata wa asxaabu asxaabtiisana 5 waaye. markiin leenaha wannisfu fardu 5 waaye. wannisfu kadaalika markiin leenaha wannisfu fardu 5 waaye. kamaa ana alhaa'a daalatun calaa 5 sidii ay ha'daba ay 5 ku keenaysa. wa asxaabu 5 waaye. nis qur'aanka meeqaa lagu sheegay 5 jeer. 5 jeer ayaa qur'aanka lagu sheegay.
shantaas saddex ka mid ayaa faraa'il ku soo aroortay labada kale faraa'il maa mid nikaax waaba fa nisfu maa faraltu waaba nikaaxa maharaas ahay marka nis shan qolo ayaa wax ku qaadana kaarkaas shan qolo hal mar isla qaadana ma hayeen mid walba fiiri markaad qaadana lambar kow albintu gabar ayaa nis wax ku dhexlaysa gabar ayaa wax ku dhexlaysa fa in kaanad waaxidatan falahaa annisfu ujeedaa ninbaa dhintay hal gabar ayaad ka tagay soomayn xoolihiis miqaa yahayeen 10 milyan ay ahayeen 5 milyan ay qaadanaysaa nis ay qaadanaysaa laba shardi ay leedahay shuruud iska ilaali gabarta markii ay nis qaadane laba shardi ay leedahay kow cadamul mucasab wiil casabaynaa oo leebelkeeda oo lidakari mithlu xadil untayna u qaadanayiin in la weeyaa la rabaa shardiga koowaad cadamul mucasab wiil casabaynaaye waa in aanad jirin shardiga labaad waa cadamul mumaathala gabar leebelkeeda oo macnaha mumaathilkeeda in la weey ayaa la shardinayaa kitaabkaa noo keeni doono wiil oo mucasab haddii la hela ahlu faralku waaba ka saara oo xaggay tagayiin oo casaba ay noqonayiinoo lidakari mithlu xadil untayhayn niskaan ma jiraaye mumaathala ayaan dhahanee gabar ama gabadho ama laba ama saddex ama gabar oo la dhalata hadday jiraanna xoolihii thuluthaan ay qaadanayiin niskaan ma jiraayo albintu waxay ku qaadanaan ku dhahay bishardeyni qofka labaad bintul ibni nimaa dhintay ilmaada asaga dhalay ma joogaan wiil asagaa dhalay oo horaan u dhintay gabar aad ka tagay ayaa ciddi joogta ciddi waa loo heri aabbaheed waa dhintay awal horaa dhintay awowgii hadda dhintay awowgeed ayaa kaas keliya yaxaa joogta xoolihii laba meeloodaa loo dhigaa meel ay qaadane idan saddex shardi ayaa loo shardinaa kow cadamu waladi sulbi waxaan ku dhahay cadamu waladi sulbi ninkan dhintay ilmo aad dhali waa in la weeyaa amaa ninkan dhintay ilmo aad dhali haddaa la waa noo imaa doontaa shardiga koobaad shardiga labaad waa cadamul mucasab wiil leebelkeeda oo casabay waa in la weeyaa shardiga saddexaad waa cadamul mumaathala gabar leebelkeeda waa in la weeyaa saddexay ku dhexlaysaa qofka koobaad bintu waaye qofka labaad bintul ibni waaye kuwaas faracay ahaayeen qofka saddexaad wal ukhtu waayoo liabaweyni ahaatay nimaa dhintay wax oo jooga ma lehin dadkao dhammaa cid dhammaal waa dhammaatay gabartoo labaha keliyax ayaa ciddo ka joogta ayadina xoolihii nis ayay qaadane waa goormaa 5 shardi haddii la hele shuruudda iska ilaali shardiga koowaad maxaa waaye ninkan dhinta aabbihiis waa inaad joogin aabbo waa inaad mees joogin nin rag waa ninkan maxaa yeelay aabbo marba haddaad meesha imaada raggan dhalinyarta oon guursanin wiilal iyo gabdha waxay noqdaanba oo xoolo leh beled iyo baadiye bar iyo beer waxay noqdaan ayagoo xoolo leh oonan guursanin oona ilmo dhalin mar hadday dhintaan walaalo badan oo gabdhihii wiilinay aabbihii haddaas jooga xoolaha dhammaala aabbaha iska qaramsana jeebkaad gishana 10 wiilo wiilka dhaleeto waa kuwaan gabdhihii oo oyna waa kuwaan soomayn hooyadaad wax laa kasina hoodaa wax laa sida wixii kale aaw daroror naagala guursana marka markii ay nis qaadani aabba inaad joogin ayaa la shardinaa shardiga koobaad shardiga labaad ninkan dhintay ilmo aad dhalay inay jooginna waa shardi shardiga saddexaad cadamul mucasabi nin casabeeye
oo walaalkeeda casabay in la weeyaa shardi shardigii macnaha afaraad almumaathala binta oo mithilkeeda in la weeye shardigii shanaadna waxaa waaye bintul ibni waa in la weeyaa kulli markaas mid walba midda ka dambaysaa shuruudda ka badanaysa wal ukti lil abi ukto oo liab waaye nimaa dhintiyo dadkii oo dhan ciddi yaa gaalaa dhammaysay waa dhammaadeen hal gabar oo kabaha gaara joogta xoolihiisi miqaa waaye intaas xoolihii nisay ka qaadanaysaa inta kale waa ka tegey laakiin maxaa shardi kow aabba inaad joogin laba ilmo aad ninkan dhalay dhintay inayna joogin ilmihiisi ilmaay dhaleenna inayna joogin ilmihiisi ilmaay dhaleen walaalkeed oo mucasabna inaad joogin gabar oo la dhalato mamaathilna aan la haynin soo maahin gabar mamaathil aanan la haynin ukhto oo liabna aan la shaqiiqina waa la dhahaa liabna waa la dhahaa ninkan dhintay gabar labahana in la weeye lixdaas shardi markii la arka ayay nis imaadaysaa gabaraa dhimatana iska sii maahin shuruudda iska ilaali weliga in kaanad hadday ahaat hadda ayaad wixii kuu soo qaacidayne ayaad maraq kuugu darayaa fiiri in kaanad hadday ahaat kulli waaxidatin mid kasta oo minhunna banaadkaas ka mid zawjka macnaha waa dambeeyaa soo maahin oo minhunna ayay ka midi munfaridatan mid ka keliyowday can akhin walaal yacsibuhaa soo casabay iyo wa can ukhtin walaal mithluhaa ayada madalkeedii mithlihaa maxaa loo jeedaa asaa kuu fasiri yacnii musaawiyatan lahaa ida la siman mumaathala ayaan kugu miithaalay gabadhine akhina maxaan ku dhahay mucasab ayaan ku dhahay asagaaba shuruudda ka daba keenay fahma amaa in kaana haddaad ahaada macahaa akhun walaal ida la dhisha haddaad jire fa innahu yacsibuhaa wa casabaynaa meesha ahlu faralnimada waa ka saaraya oo falidakari mithlu xadil untayayna ay u qaybsanayeen wakadaa sidaasoo kaleata laa taakudu nis qaadani mayse idaa kaana macahaa maceed haddaad ahaada ukhtuhu walaal musaawiyatan lahaa ida la simin bal yakuunu lahumaa waxa u sugnaanaa athuluthaan ayaa u sugnaanaa kamaa siyatii qariiban kol dhow sidii noo imaan doonto waalkhaamisu kan shanaad azawju nin waa idaa lam yakun haddaanad u sugnaanin macahu maciise waladu sulbi dhabarkaa la yidhahdaa ninkaas meydka dhabarkiisa ilmo ka imaada walaa waladul ibni ilmihiis ilmaay dhaleen sawaa'un mustawin waxaa simin kaana ahaayaa waladkaas minhu asaga ayay u dhashay aw meehee min zawjin aakhara ayay u dhashay min zawjin aakhara ayay u dhashay naagaa dhimitay allah u naxariis waa la duugay dhaxalkeedaa loo imaaday beec mushtaraa yaheed xoolo badan ay laheed soo maahin ma dhashay aheede naag ma dhashee oo macnaha dukaanley oo 10 milyan aheed wadaadka xirow aa nikaaxsaday waa dhimitay ninkeedii xoolaheedii niskeedas qaadana nasiib badana wadaadka xoolaheedii niskeedii ayaad qaadanayaa laakiin maxaa shardi in ilma aynay joogin naagtaasay dhashay ilmahaasay naagtaas dhashay yaa asaga ka dheliyaa nin kale ka dheliyaa ilmo unbaa loo baahan yaha duqdan xabar xireedka oo nimankii oo tigreeda oo hadda ka hore muslimiinta ay guursan oo ilmo dhashay oo qoladaas booranta haddana ay guurseen ilmo kale ay u dhashay oo ka bacdi soo wareegto inta joogta soo maahin gabdhaheedii alla qabaa wiilasheedana ay guursadeen ilmahaas ama adiga ha kuu dhashe amaba nin kale ha dhashe ilmaha ciida ay dhashay ay joogin
nacam xoolihii niskooda ayaad qaadanayaa shardigiisa maxaa noqonaya shardun waaxidun wahuwa alcadam weyn waaye idaa lam yakun haddaanad ahaan macahu isaga maciisa walada sulbi naagtan dhabarkeeda ilme ka imaadi walaa waladu ibnin waladul ibni ilmihiis sawaa'un kaana ahaaya waladkaas minhu asaga kuway u dhashay aw min zawjin aakhara ay u dhashay wa kharaja waxaa baxay biwaladil ibni layidhi waladul binti wiil unbaa meesha soo ruguursanaa gabadha wiilkeeda waa ka abtay awgee dhintas ku hayaa fayna min dawil arxaam waa kaas soo geli maaye alhaa habaaha ba'a ku xigtay walbaa'u ba tadullu waxay ku tusinaysaa xisaab ahaanaa loo jeedaa xisaab ahaan waxay keeni calaa ithnayn laba ayay keentaa warubucu rubac kadaalika sidaasoo kalaata wa asxaabuhu asxaabtiisana ithnaani laba waa warubucu fardu ithnayni kadaalika laba faradkooda waaye wa asxaabuhuna ithnaani waaye xoolihii afar meelood magi loo dhigi meel yaa qaadanaya midaanaa badan aaday u badan tahay hadhowtan dhaxalsiyaa ladiin dhihi doonaa lambar kow azawju ninaa qaadanaya idaa kaana haddaad ahaada macahu maciise waladun walad aw waladu ibnin aad ahaadi zawj naagtan ilmaay dhishi ilma ayday dhishi amaba aad macnaha wiilkeeda aad dhalay sawaa'un dakar naagtan dhimatay ilmaha ay dhishi oo joogo waa rag aw unthaa waa bilcaan wa khunhaa labeeb waaye sawaa'un kaana alwaladu minhu asagaa ka dhalay aw min zawjin aakhara rubac qur'aanka laba jeer ayaa lagu sheegay lafdu rubac warada fi lqur'aani maratayn midaanaa badanna naagaa dhimatay dhinkeedana waa joogaa ilma ayda dhishina waa joogaan amaba ilmaheeda ilma ay dhaleenna waa joogaan wiilkeedin baa hadda loo jeedaa gabirta maahine rag nuqiya bilcaan nuqiya soomahin ninkan u dhishaa uma dhalinaaba kulle xoolihii waa la dhaxlaa aye xoolihii afar meelood oo jijin ka dhig meesha afaraad ayaad qaadanaa waaba tagaa bis bahalka ninka la yidhaa qaali waaye laba kaaraa la soo baxaa ilma hadday joogin kaar oo shanla la dhaha oo nis la yidhaha la soo baxaa gruubkaasaan ku jiraa hadday ilmo joogaan kaar afarla ayaa la soo baxa oo rubac la yidhaha la soo baxaa raqiis maa ninkan raqiis maaha lambarka koowaad azawju waaye wazawjatu lambarka labaad bedelkaad dhihi lahay ma astaynin calaamadaysa adiga lambarka labaad azawjatu wa naag niga dhintay wazawjataani laba naagood wazawjaatu naaga badan in lam yakun haddaanad ahaanin macahaa zawjadii aw macahumaa labada zawjo aw macahunna zawjaadka badnaay waladun walad haddaad ahaanin walaa waladu ibnin haddaanad ahaanin sawaa'un mustawin waxaa simin dakaran ahayaa aw untha ahayaa aw khuntha ahayaa nimaa dhintay allah u naxariisa wiilo hadda dhow guursada aad dhahay ilmo ma dhalin xoolihiisaa la dhaxlaa gabadhii afar meelood magi loo dhigaa meel la siinaa laba naagood ay ahaayeen halkaasay isla qaadanayeen saddex naagood ay ahaayeen halkaasay isla qaadanayeen afar naagodaas qabi halkaasay isla qaadanayeen hadhowd miga daxalsiine tana rubaco sii tan may nacam waayahay ilmahaas ida ama ha dhasha amaba naag kale ha dhasha zawju macnaha zawjadaas nacam meeshan
anigu dee reer baadiyaan ahne reer baadiyahana waxaa caade ay caamada iska daliilkooda maxaa waaye naag wiil mar hadday dhashay qori lab ay leedahay qori lab maxaa waaye ragga waxaad qaadanaysaa maxaa waaye haddaana meeshan kitaabkan duqdii oo 90 jirka ahayd oo ilmaha dhammaala dhashay yaa haddii ay laga dhinte maxay qaadanaysaa rubacaas gabadhii arooska ahayd oo hadda xali magad aroosaad ninkeeda ku kor dhintay idin maxay qaadanaysaa rubacaas nacam ilmaha rag iyo bilcaan iyo khunso la kala qaadan maaye wal alifu habaa ha ba baad alif ay ku tagneed ba wal alifu alif tadullu waxay ku tusinay xisaab ahaan calaa waaxid abjad ab idaaba laga bilaabanaa tadullu calaa waaxid ay ku tusin xisaab ahaan wathumunu thumun fardu waaxidin waaye kadaalika sidaas wa asxaabu asxaabkiisana waaxidun waaye wahuwa azawjatu zawjo waa aw izawjataani laba zawjo aw izawjaad goormaa idaa kaana haddaadaad macahumaa macooda macahaa waaxidada maceeda hadday tahay aw macahumaa labadooda macooda aw macahunna markay badnaan waladun walad aad ahaadi walaa waladu ibnin aw waladul ibnin siwaa'un dakaran ilmahan la sheega wecel kuma jiro oo naagta ninka markii aad rubac aad qaadanaa naag cunug wecel wadata ayaad guursaday soo maahin marka naagtii ayaa dhimitay ilmo kale ma joogaan cunugu wecelkaa geliya xa joogo nisaas qaadanaa ninka nis cunugan wecelka xisaabku ma jiro dirishadaa laga tuuraa cunug wecel sidiisu ilmaha la tirinaa kuma jiraay haddiin kasoo gelin xag u dhaqaajiye nacam marka maxaan dhahanay reer baadiye maxay dhaheen wiil hadday mar dhishe qoriga ragga ay qaadanayso ma ahin been waaye duqdii oo raggan dhammaala dhashay iyo gabadha bahayartaheed oo bishaan la guursaday kolle maxay qaabsanayaan thumun xoolihii 8 mid loo dhigay meesho nacam lafdiga thumun qur'aanka hal mar keliya ayaa lagu sheegay soomayn maxaad ahay walakum rubucu mimma tarakna in lam yakun walad nacam hal mar ayaa lagu sheegay fain kaana lakum waladun falahunna thumunu mima taraktum nacam marka bilcaan waa taas qorigaas ayay qaybsanayeen badin mana badanayeen markaas waa la badinaana la dhihi maaye wadaal habaa da wadaalu daal tadullu waxay ku tusinaysaa xisaab ahaan calaa 4 wathuluthaan fardu 4 waaye kadaalika sidaasoo kalaata wa asxaabuhu thuluthaana saxaabtiisana 4 far waaye shaati kale ay kuu soo geshadeen kuwii haddaa weytay gabdha ahayd ninka ka bixi 5 ay ahaayeene gabdhihiisu 4 meeheen 4tii markii ay bataan shaati kale ay kuu soo qaateen ahlu thuluthaananay ku dheheen shaati kale ay kuu soo geshadaayeen waa 4tii aan soo marayn ninkii baan ka bixinay 5 ay ahaayeen ninkii 5aad laga bixi waa ninka 4toodii aan soo kaceenoo ahlu thuluthaan oo waxa in siinay maxaa dhacay network isbedelay albintaani fa aktara laba gabdhood iyo wixii ka sii badan wa bintaa ibnin fa aktara laba gabdhood ood wiil dhalay iyo wix ka sii badan 3 wal ukhtaani oo li abweynin ahaad iyo fa aktara wixii ka sii badan 4 wal ukhtaani
laba gabdhood oo lil abi ahaad iyo fa aktara wax kasii badan in kunna hadday ahaadaan munfaridaatin kuwii keliyoobi can akhin walaal yacsibuhunna casabeeye markay gabdhahan ninbaa dhintay laba gabdhood ayaad ka dhintay 3 gabdhood ayaad ka dhintay 5 gabdhood ayaad 10 gabdhood ayaad ka dhintay wiilna ma jira waxay thuluthaankaas ay qaadanayeen marka weligeed bilcaamaha hadday bataan qorigooda badan ma halkaas ay isla qaadanaan kuwaan ahlu thuluthaankana hadday bataan oo 10 gabdhood oo dhali halkaas bay qaadanayeen 10 bintu ibni halkaas ay qaadanayeen 10 oo akhtayn macna shaqiiqatayn sidaas oo kalaata badnaantooda jiddaadkana waa caynkaas oo kalaatay jiddaadkan hadday bataan qorigaas bay isla qaadanayeen marka dadkan badan ayaanad ku sirin qorigoon bay leeyihiin maanta waxa ay u qaadanayeen xoolihii 3 meelood markii loo dhigay 2 meelood wiil lama jira wa amma in kaana haddaad ahaada macahunna macooda akhun walaal musaawin lisimin lahunna iyaga fa innahu akhii yacsibuhunna wa casbaynaa oo way qaybsanayeen oo lidakari midlu xadil untayayna ay u qaybsanayeen kamaa sayatii sidii noo imaa doonto fii fasli irthil owlaad fasl irthil owlaad iyo wa fii fasli miraathil macnaa xawaashi sidii nooga imaa doonto meeshaana joogo wallahu subxaana wa tacaala faraa'idku waa dhib badan tahay meeshaana idin joogo